الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سيديد يا لواتناد يا دروستين بشهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى قارهان قيبتي عتق من النار نار اللغو حريني بإذن الله تبارك وتعالى waxaa ka mid ah arrinta lixaad waa qofkii mashyu lkhadawaati fii sabiili illah ilaahay dartii qofka u lugeeya oo khayr aada ayay maaragtay qofkaasi masaajidka oo kalaa ka mid ah nin ka mid ah dadkii salafka ahaa baa wuxuu ka daba tegay nin kale oo maaragtay isaguna dadkii wanaagsan jumcada usii soo xagee u socotaa markaasuu jumcada u socdaa wuxuu ku bishaaraysa waxaan maqlay nin rasuulka ka dhageystay oo dhahaya qofkii labadiisa gomadood ay boodhoobaan ilaahay dartii fahumaa xaraamun cala naari naarta xaaraan bay ka yihiin oo lugihiisaas iyo jirkiisu xaaraan buu ka noqon waana xadiis sheekh alalbani uu saxiixiyey haddaba khadwo kasta xadiid kale baa isaguna wuxuu sheegayaa man gasala yowma aljumcati waqtasala huma bakara wabtakara wamashaa walam yarkab wadana min alimaami wastamac waanshat yacni xadiidku arrimo badan buu sheegay qofka maalinta jumcada ah ee qabaysta oo maaragtay kalaha oo weliba lugeeya oon gaadiid fuurin baabuur iyo waxba aan korin macnaa halka waxaa la rabaa lugahaaga inay boodhoobaan u dhowaada imaamka dhegaysta oo dheg raariciya laqwi aan samayno hadallo kale aan ku hadhadlin tallaabo kasta uu qofkaasi tallaabsanayo masaajidka uu sii socday waxay u dhigantaa sanad dhan camalkii oo ay ku jiraan soonkii iyo qiyaamkii ay ku dhex jiraan waa arrin la yaab la weeyaan waa xadiis saxiixa saxiixuljaamic sheekh albani ku saxiixiyey waa wax aada iyo aada u weyn weeyaan marka taasna waxaa lagu samayn kara hadduu qofku taa uusan waxyaabo badan oo waxaa jira uu samaynaya oo dacwada ilaahay bay lugahaagu boodhoobi karaan aad ku samayn ood ilaahay dacwadiisa gudanaysaa kitaab baad soo akrinaysaa meel baad masaajid fog baad aadaysaa qofka dhibaataysan baad u gargaari oo waa dadkii meelaha iyagun dadka caawinayay xaajada qof baahan baad dantiisa gudaysaa qof baa jiran baad soo booqanaysaa janaa-isadii baad ka qayb galaysaa wax badan baa lagu helayaa lugahaagu inay ilaahay darti u boodhoobaan arrinta toddobaad oo naarta looga xoroobo waxaa ka mid ah samaaxatul akhlaaq qofka akhlaaqda wanaagsan labaa la yidhaahdayo midna waa ilaahay baa qofka u abuuraa midna diinta qur-aanka ilaahay iyo diintii baa lagu dhaqmaa oo akhlaaqdaada qur-aanka laga dhigaa xadiis baa rasuulku wuxu uhi sal alla alay wasalam man kaana hayinan layinan qofka hayinka oo layinka waa qofka dabacsan waa qofka akhlaaqda wanaagsan waa qofka dadka u jilcan oo dhinaciisu u jilcan yahay ummadda kale xaramahu allahu cala annaar qofka ilaahay naartu ka xarimaya sidaas daraaddeed ba rasuulka waxaa yihi sala allahu caleyh wasalam wuxuu ah fii gaayati qof aada dhinaciisu ugu jilcan yahay dadka oo asxaabtiisa ku dhex jira ayuu ahaa ilan ilaahay baa wuxuu leeyay bilmu'miniina ru'uufu raxiim mu'miniinta ru'uuf mid u tura buu ahaa oo naxariis badan buu ahaa samxi baa la rabaa qofku mucaamalaadkaaga dhan inaad dadka dhexdooda markaad dee joogto aad tahay qof macaan oo wejigooda u muusoonayo oo maaragtay xaliim aho dulqaad badan oo aan carab badnayn oo maaragtay ummadda aan ka cararayno dadku ayna ka cararayno hadalkiisu wanaagsan yahay oo marka qofka waxaa la rabaa inay noqoto taasna cidqi min annaar baa lagu helaa arrinta sideedaad oo iyadana naarta looga xoroobo waa tarbiyatulbanaati walakhawaat waa gabdhaha qofka ilaahay gabdha siiyey inuu gabdhaha tarbiyadooda hagaajiyo iyo walaalaha hadday yihiinba gabdho kula dhashay naftooda rasuulka wuxuu yihi sala allahu alay wasalam laysa axadun min ummatii yacuulu halaatha banaatin wa halaatha akhawaatin ma jiro qof maamula oo mas-uulkaa 3 gabdhood oo dhalay ama 3 gabdhood oo la dhashay oo uu hagaajinaya gabdhahaas tarbiyadooda hagaajinayo ilaa hadduu jiro kunna lahu sitra min annaar naartii bay xijaab uga noqonayaan ilaahay baa sababtooda naarta uga xijaabaya oo naarta qofkaasi arki maayo xadiid kale isaguna wuxuu yahay man kaana lahu 3 banaat fasabara calayhin qofkii 3 gabdhood dhala oo u sabra oo quudiya oo waraabiya oo dharkooda maarata ka fikiro dharkoodii huwiya waxay noqonayaan iyaguna xijaaban min annaari yowma alqiyaama marka sabirka la leeyahay waxaa qof gabdhaha iyo wiilashu isku korin ma aha isku dhibna ma aha dadka wiilasha dhalay
wax badan dadkaasi yacni gabdhaha dadka dhalay way uga duwan yihiin. Gabdhuhu hagaajin bay u baahan yihiin, dharkoodiiba hagaajin u baahan, oo tintoodiiba hagaajin u baahan, oo tahaaradoodiiba hagaajin, wax badan bay u baahan yihiin gabdhuhu oo wiilasha inu badnayn. Wiilka hadda dugsiyada marka la aadayo wiilasha war soo baxun baa la oranaya, soo labiso, intuu galo hal qamiis isku soo ridaya ama hal surwaal buu soo ordaya. Laakiin gabadhu diyaarin bay rabtaa, waqti dheer bay u baahan tahay in la diyaariyo. Marka saasaa waxaad noqonayaan gabdhihii bay uga ajir bateen wiilkii, aad dareemaysa inay uga ajir badanayaan. marka waa inuu qofku si u helo arintaas uu isaguna uu ka fikiro biidni illaahi tabaaraka watacaala. xadiid kaleba wuxuu ayu mamru'in muslimin actaqa imra'an musliman, yani qofkii qof muslima xoreeya. waa haddii waagi dadka addoomaha jiri jireen, ilaahay wuxuu kaga xoreynaya xubin kasta xubinkaaga xubin walbo adiga xubin baa lagaaga xoreynaya biidni illaahi tabaaraka watacaala. raggiina waa saas, dumarkiina waa sidaas. marka qofkii marka taa waxay culimadu hadda haddii ay dhammaatay oo addoommo ayna jirin, waxaa jira wax badan oo kale oo fadli ah oo la samayn kara ayaa jira. markaa ka daalina samee insha allah. baaraka